السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. calaykum assalaam. Waxaan ku weydiiyey maxaad ii salaamaysaa? Anigu kuma rabo inaan ku arko ama aan kula hadlo, ee waxaan kaa codsanayaa in aanad aniga i ammaan geliso. Horena waxaan kugu sheegay in aanad aniga ila hadlin, sidoo kale aanad ii iman. Ma fahantay? maasha allah saaxiib maanta aqalka waxaa haysta adarkaaga aad ayuu udgoon yahay waan ka helayba ma sheegi kartaa halka ku saybsatay adigoo raalli ah hubsiima hal baa la siistaa yaa ku yidhi ninkan ayaa soo iibsan kara adarkan oo kale waaruu soo xaday amba waa lagu soo sadaqaystay waa labadaa midun Waar imikana salaamada. Aniga iyo ninkan meel ma wada fadhii kara. Walaalayaal, assalaamu calaykum. Meel baan ku degdegay, igana raalli ahaada. Ninkani mar kasta oo aanu kulanno wuu igu xanaaqsan yahay. Waxaan ku sameeyeyna ma garanayo. Maxaad u malaynaysaa adeer? Arrintan aniga way iga yaabisay. Talo isii wanaagsan si aan uga faa'iidaysto waayo aragnimadaada iyo aqoonta diinta Islaamka aad u leedahay. adeer waxaa kugula talin lahaa inaad hadiyad qaaliya siisid adoo ku dhaqmaya xadiiskii rasuulka sala allahu calayhi wasalam tahaaduu taxaabuu oo macnaheedu yahay ishadyadeeya aad isjeclaantaane wakhtiga ugu fiican ee aan kugula talin lahaa inaad u tagtidna waa maqrib iyo cishaayi inta u dhaxaysa adeer inanka u samir geesinimadu maaha in aad ka aargudatid ee waa inaad ilaahay dartii ugu aamustid una dulqaadatid adeer assalaamu calaykum adeeri waran maxaad haysaa baliishan sheeg alaabaha cusub ee yimid meeshan waxaan ku arkayaa dhar kabo suudhadh shaadhadh saraawiil iyo cadaro itusta soo sharax waxa ku cusub suuqiyo meheradaha maanta waxaan rabaa hadiyad aad u qaali ah inaan iibiyo gaar ahaan waxaan jecelahay cadarada in laysku hadiyadeeyana u fiicane calaykum assalaam kusoo dhowow meherada wax kastoo jeceshahay waan kaa iibinayaa waxaan kugu bushaaraynayaana in cadaradii ugu dambeeyey ay imaadeen wiigan markaa cadarkan mise dul yaalana waa kagu qaalisanoo waa $200. Maxaa gooyla xaafadda u soo qaracaysaa xilligan? Maalin kale ma daba yaanan wejigaaga arkin. Iminkan iga hor dhaqaaq. Walaal, meeshan waxaan u imaaday inaan soo booqdo saaxiibkaygii qaaliga ahaa ee aan jeclaa. Imada ogolaan kartaa inaan soo galo oon wada sheekaysano. soo galbalahaaye maanta dhan intuu la hadlayay hadallo wanaagsan buu ku lahaa wuxuuna ka wareysanayay faamiligiisa iyo isaga xaaladiisaba Haddaba assalaamu calaykum. Xilli dambe sii noqotee sii tegayay. Ilaahay ha kula garab jiro. waa liira sug wax yar baan ku soo
هذه الدنيا قدون والله إلى درتي وهو تعالى تنوع شيء غير أن قصين كانوا واحد الله ولا سكي سامح تنبي بدن بنك علي waxaa soo dhan ku sameeyay hadana saay sabrtay hayay isiinaysa waxaan ku weydiisanaynaa afisid ilaahay sabarkaana ka abaal